عصير رسمي مقالة هرقيسي عاصمة السوماليلان وقفر شروينه شقاب ورد هير قرن وحنا مناسبة دنو قبن قابد إذا لهيد وزارة شقاقلينتا السوماليلان وكاشان يصوروا كدلنيرada السوماليلان الصونيو كسو قيب قلي مدحوينها السوماليلان قار كترسن قلها وزيرة حكومة ديسا والردع عالميقا يكوى محلقا وحنا ورين مناسبة داسي كهالي وزيرك وزارة شقاقلينتا السوماليلان مروهن ده حرسي جامع قاني كو وزارة وحي قعنتا كوهيسا سياسة الشغاعوركا National Employment Policy ayay gacanta ku haysaa oo iminka maraya meel gabagaba ah sidoo kale waxay wasaaraddu gacanta ku haysaa siyaasadda carbinta ayay gacanta ku haysaa National Internship Policy ayay gacanta ku haysaa dhammaan siyaasadahaas waxaan u aragnaa barashadooda ama dhamaystirkoodu inay tayo u leeyihiin dhalinyarada si ay shaqo u helaan waxay wasaaraddu gacanta ku haysaa siyaasadda hawlgabka shaqaalaha ayay gacanta ku haysaa taas oo aan u aragno in ay tayo badan u leedahay run ahaantii qaranka Soomaaliland geestoodayna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonya mudane Cabdicasiis Siciid Saalax iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland mudane Maxamed Shukri 2.7 milyan tababarkooda tayintooda iyaduna wax sahlan maaha inta marka la sheegay hay'aduhu qabanayaan runtii waxay iska noqonaysaa in kooban oo aan wada gaarsiisnayn dalka shirkani wuxuu naga caawin doonaa labada cisho aynu joogno inaynu la nimaadno xal aynu shaqo ugu abuuri lahayn 10 kun oo dhalinyaro ah oo reer Soomaaliland waxaan u baahanahay macaahiid ay ka soo baxaan dhalinyaro ka faa'iideysata fursadaha shaqo dalka yaala waxaana gabagabadii munaasabadaasi soo gabagabeeyay isla markaasina furay shirweynaha shaqo abuuridda heer qaran ee Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marka koobaad malaha aniga waxa lagu marti qaaday inaan ilaahdo shirku weyn furay mudnaanta koowaad waxaan siinay nabadgelyada oo mas'uuliyadda ugu weyn laga doonayaa waxaan nabadgelyada ay shaqeyn maayo mudnaanta labaad waxaan siinay caafimaadka oo haddii dadkii dee ay wada bukoodaan iyana shaqo la geli maayo mudnaanta saddexaad waxaan siinay waxbarashada waana qofkii soo carbinaa saddexaad mas'uuliyadda shirkaduna la wadaagaan dawladda saaranta marka kuwaas aan mudnaanta siinay marka haddana qofkii caafimaad qabkiisa ka soo talinay waxbarashadiisa ka soo talinay ammaankiisa ka soo talagalnay shaqo gelintii dee waa la caawiyaa uma dhaqaalaha taada waa la xoogaytaa taana ka sabab taaganahay inta ka soo qayb gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkan insha Allah wax khayr qoyn ka galo ayaan ka soo bixi doonaa hay'adaha shirkana waa mahadnaqayaa waxa xusid mudan in shirweynaha yahay shirweynihii saddexaad ee lagu qabtay magaalada Hargeysa Xamse Cilmi telefishinka caalamiga ah Universal Hargeysa